ونينka maanta Turkiga ka yimaada waxa waqooyiga markaa dee Suuriya dhulka ee koonfur soo socda xaggan uu kacay ninka koonfur Afrika ka yimaada ee waqooyiga soo socda xaggan uu soo dhaqaaqaya marka dhulha waa mandiqada istaraatiijiga dhinaca kale marka lagu waa mandiqo ama waa dhul waxa weeyaan Ilaahay ku manaystay waxyaalo fara badan oo qorraxda in badan ay helaan oo dhul badan bay qorraxda ay ku yartahay habeenku badan yahay ma qorraxda la helay daciif tahay waa dhul zaraaca iyo beerale waa dhul markaa biyale waa dhul dhaqaale markaa leh xoolaad leh waa meel adigu meel hodana weeyaan marka khulaasadu waxay tahay waa meel ugu haduu hodan u yahay istaraatiijina u yahay adduunyada dhan way eegataa nin waliba maslaxadiisa inuu ka fushado haday qarbiga galbeedka gaal kristaanki tahay haday dawladaha kale markaa aan islaamka ahayn ay tahay guud ahaan in haday dadka muslimiinta dawlad Uthmaaniya oo kale waxay geeskan Afrika waxay ku leedahay raad fara badan oo dana fara badan baa kaga xidhnaayo raad fara badan oo kaga tagtay marka horta khulaasan geeska Afrika waa meel istaraatiijiyada noocaas ah marka juqraafi ahaan la eego marka xagga siraacaadkeedii ay marka waxay loolanka diimeedna waa meel ay muddo ku qiyaasay 600 ilaa 700 oo sano siraacu ka dhex taagnaa dadka islaamka ah iyo dadka kristaanka ama guud ahaan dadka gaalada ah iyo dadka islaamka